بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada saaxiibayaal sidii caadiga ahayd waxaan noo soo socday taxaanaha barashada suuqa sarifka lacagaha qalaad oo aad ka baranayseen halbeeg SOS sidii caadigeed waxaan noo soo socday taxaanaheennii chart patterns-ka oo ah saldhigga ama meelaha ugu muhiimsan marka aad joogtid suuqan sarifka lacagaha qalaad waxyaabihii aan kusoo barnay qaybihii hore waxaa ka mid ahaa double top iyo double bottom iyo sidoo kaleeto qaybtii xalay oo aan uga soo sheekeynay head and shoulderska caawan hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan baran doonaa rising and falling wages aan baran doonaa insha allah oo ah laba kelimadood oo af english ah rising haddii aa maqashid waa wax kor u socda ama kor u kacaya fallingna waa wax hoos ama hoos u dhacaya marka waxaybayayso idinku noqon wax adag laakiin af Soomaali ahaan waxa ka sii muhiimsan in wixii toos ah u aragtid indhahaaga si aa uga qaadatid wax khibrad ah insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo sida caadiga ahayd mar walba oo cashiro aan soo bandhigno waxaan suubinaa tixraaceeda ama wixii qofka markaas uu ka shidaal qaadan karo ama uu muuqaal ahaan u samayn karo ayaan sida caadiga soo raacinaa okay nooca marka arabna in aan maanta ama caawa hadduu ilaahay yiraahdo ka hadalno waa rising and falling wages marka la isku daro okay nooca koowaad marka haddii aan si guud u dulmaro wages ayaa tilmaamaya in wax xoogaa ah la joojiyo markaad la kulanto qaabkan waxay tilmaamaysaa in ganacsatada forex ay weli go'aansanayaan halka ay ka qaadan doonaan lamaanaha xiga wages waxay sameeyaan habab isbedel ama continuation ama sidoo kaleeto dib u noqosho oo ah reversal xarajina kelimadaasi badanaa luqadan suuqa sarifka lacagaha qalaad way ku soo noqotaa forex-ka continuation reversal ranging pullback breakout resistance iyo support kelimadahaasna kelimadaha ugu badan ee la rabo qofka in uu fahmo ayay ka mid tahay okaadiya xarajina muuqaalka inuusan muuqanin okay hadda wax walba inay clear yihiin rajayna insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo ay idiin muuqdaan oo si nadiif ah aad u arki kartaan okay aan iska soo leexiyay muuqaalkaasi okay السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال سو دوادا casharadii caadiga ahaa ee taxanaha ee noo soo socday ayaan hadduu ilaahay awood la yiraahdo aan sii wadan doonaa casharadii hordhac waxaan ku soo qaadanay waxyaabaha basiga ee laga rabo qofka suuqan sarifka lacagaha qalaad raba in uu ka shaqeysto in uu wax badan ka ogaado brokerada ayaan soo tilmaamnay oo aan ka sheekeynay xaaladaha ugu horeeya iyo albaabka ugu horeeya suuqan forex-ka waxyaabaha aad rabtid aan waxyaabaha laga rabo in aad baratid ayaan ka soo sheekeynay sidoo kaleeto taxane cusub ayaa waxa uu noo bilowday isbuucan oo ah chart patterns oo ah shaxna aad u muhiimsan suuqana intiisa badan lagu dhex arko okay noocyadii hore aan u soo qaadanay waxaa ka mid ahaa head and shoulderka sidoo kaleeto double top and double bottomska oo aan si fiican uga soo hadalnay caawana hadduu ilaahay yiraahdo qaybteennan xigta waxaan ku baran doonaa nooca loo yaqaano rising and falling wages oo ah laba kelimadood oo af english ah kelimada rising waa wax ama shay kor u socda ama kacaya ama qiimo leh tusaale ahaan markii suuqa loo fiiriyo falling wagesna waa shay ama hoos ama dhacay hoos u socda okay way badan yihiin qaybaha iyo naqshadaha suuqan uu samaysto hadduu ilaahay yiraahdana waa kala qaadi doonaa oo qayb ayaanu idinkula wadaagi doonaa si aad wax badan uga fahantaan oo ay idinkugu noqoto wax aad joogteen kartaan ama aad fahmi kartaan isla markaasi noocyada aan rabno marka inaan barno caawa waa idiin soo sheegnay oo rising iyo falling ayaan rabnaa maxay kala yihiin marka wages ayaa tilmaamaya in wax xoogaa ah la joojiyo markaad la kulanto qaabkan markaa qoraalka akhrina waxaan rajeynaa muuqaalkan sawirkana indhaha la raacdid sababtoo ah way isdaba socdaan oo wax alla wixii markaas qoraal ahaan iyo hadal ahaan aan ugu hadlayo shaashada ama muuqaalka sawirka hortaada ka muuqda
ayay kuugu diyaarsan yihiin. Okay, markaad la kulanto marka qaabkan waxay tilmaamaysaa in ganacsatada forex ay weli go'aansanayaan halka ay ka qaadan doonaan lamaanaha xiga oo ah suuqa haddii mar xaalad consolidation ay dhacdo ama suuqaasi uu samaysan doono reversal ama ranging uu galo oo ah kelimadihii aan soo baranay luqadda suuqan. waxaa u baahan tahay marka in aad sii diyaargarowdid isbeddel aa u diyaargarowdid aa ogaatid suuqan waxa dhici raba iyo lacagaha kugu habboon markaasi in aad geshid iyo haddii aad geli lahayd qaab noocee ah sell ama buy qaabkii u geli lahayd. marka shaxnada hortaada lagu soo dhigana waa fahmi kartaa haddii tusaale rising witchkan ee hortiina idinkula wadaaga ka muuqda uu samaysto laba xariijin oo ah qaabka dalcadda xariijintaasna uu ku dhex laalaabto markeeda horena ay ka timid hoos oo ay kor u socotay oo ah suuq uptrend ah. marka ay kuu soo jabsato xariijintaada saboortiga jawaabta keliya aad filin kartid waa in suuqaasi hoos loo kaxeeyaa. okay, marka waxay tilmaamaysaa in ganacsatada forex ay weli go'aansanayaan halka ay ka qaadan doonaan lamaanaha xiga. xaaladda marka consolidation waxaa laga wadaa qaabka noocana labadan xariijin markii suuqa uu ku dhex jiro oo marna kor marna hoos marna kor marna hoos ay tahay waa xaalad wareersan aan dhinacna jirin. sida caadiga ah suuqa waa inuu uptrend ama downtrend uu samaystaa. haddii labadaba laga waayo waa in markaasi consolidation uu ku jira oo ah xaalad la kala badin waayo ama awoodaha suuqa markaasi ay isbarbar socdaan buyerska iyo sidoo kaleeto sellerska. haddii marka koox ka mid ah kooxda labada koox ee ciyaaraysa ay balooniga qaadato ama ay guusha qaadato fariinta la rabo marka in aad fahantid ayaa ah in suuqaasi ay dhici rabto reversal ama dib u laabasho ama isla markaasi xaaladii lagu jiray in laga guuro oo xaalad cusub la galo. okay, wits waxay sameeyaan marka habab isbeddel oo ah continuation ama dib u noqosho oo ah reversal oo aan hadda kasoo sheekeynay. good, nooca koowaad marka rising wage markaan joogno qulqulatooyin kor u kacaya ayaa la sameeyaa marka qiimaha isku darka ka dhaxeeyo taageerada dhaadheer ee kor u kaca iyo qadadka iska caabinta. kelimada iska caabinta hadda korna waa kasoo sheekeynay waa meesha resistancega. meelna waxaan dhahnay meel suuqa laga taageero oo ah support, meelna waa meel uu suuqa iska caabin uu ka sameeyo oo ah resistance. okay, rising wage haddaa aragtid waa fariin bearish pattern ah oo ah suuq hoos ama jiha hoose loo wado oo sell ah. marka noocan loo yaqaana rising qaabkana usoo samaysmaa markiisa hore marka suuq uptrend ku yimaado oo suuq hoos ka yimid oo kor u socday. haddii suuqan hoos ka yimid kor ee u socday oo uu ku samaysto higher highs laga soo celiyo labadaada xariijin dhexdooda ama eriyadan dalcadda oo kuu soo galo waxaad markaasi suganaysaa isbeddel. laakiin inta xaaladan lagu jiro waxaaba yaraatee markaasi suuqa jabsasho ah ama kor ama hoos labada midna ma haysid. fariinta marka ugu muhiimsan ee qof walba la raba in uu ogaado ayaa ah waa inaad sugtaa sugitaan waa in aad sugtaa inta jihada suuqa uu ka bedelanayo oo lasoo jebinayo. good, kaasi waa sawirka qaybtiisa koowaad. qaybta labaad marka xaaladii hore ee socotay ayaa waxaa dhacday in suuqii soo jabsado. marka jabsashadii uu soo jabsaday waxaan ka soo sheekeynay oo la rabaa mar walba inuu qofka xasuusnaado ama double top ha ahaado ama head and shoulder ha ahaado ama noocyada dambe noo soo socdaan ha ahaadaan. mar walba ee suuq xaaladan ku soo jiray ee aad analyze garaysanayso aad la socotay waxaa qasab ah haddii suuqaasi kuu soo jabsado waa in aad soo cabirataa labadii xariijin ama dhaqaaqii markaasi uu sameeyey ee hore si aad uga shidaal qaadato aad u ogaato marka inta biib ama dhaqaaq uu sameeyey suuqaasi si aad fursad hoose ugu raacdid. sababto taasna waxa ay qayb muhiima ka qaadataa tradekeena si aan wax badan uga ogaano waa muhiim. laakiin haddii aad tahay qof iska socdaa ama marba dhinac u socdaa xaqiiq waxa ah suuqa in lagaaga badin doono marmarna ay ku siin doonto inta badanna guuldarada ay adiga kugu dambeyn doonto. laakiin marka xaalad noocana uu ku yimaado rising wage ee uu ku dhexgalo labadaada xariijin dhexdooda ama eriyada dalcadda kadib waxaad suganaysaa fariin ah jabsasho. markuu kuu soo jabsado kan dharka labaad sida caadiga mar walba uu soo jabsado
kandalka labaad ee xaqiijinta la rabo suuqa in aad hoos u raacdid ayaad suganaysaa oo ah qaybtan labaad haddii aad si fiican u fiirisid jabsashadii kandalkii labaad ayaan ka soo raacnay waxaana la soconay suuqa isla qiimihii uu markii hore xariijinta uu bilaabanayay uu dhaqaajiyey haddee inta 70 ama 50 ama 30 ama 60 bib waxay doontaba ahaatee ay inta qiimo ku siiso macnaheedu waxay noqonaysaa qiimihii inta lagugu soo siiyey qiimo la eg ugu yaraan waa la eg ama ka badan in uu dhaqaaqo good rising wage marka qaabka noocan ayaa loo sawiraa oo haddii aad fiirisid waa trend line kor u socda ee qaybtiisa korana looga keenay trend line kaleeto laakiin ku kulmaya jiha sida sambuuska oo kaleeto ah si fiican haddii aad u fiirisid waa fahmi kartaa sababtoo markaan trend line caadi aan sawiranaynay xariijintan dheer markaan dhigano kadib xariijin kaleeto haddana saas u dheeraan dhigan jirnay laakiin waa ay ka duwan tahay oo marka noocan sawir ama kandal istigyada ama shumacyada suuqa marka aad rabtid in aad sawir kaga qaadatid tusaale ah waa inaad marka hore xariijin dheer oo ah nooca trend line ka dhigataa kadibna qaybta sare ee kore sida xariijin u dhexeysa trend line iyo supporti aad ka dhigataa af Soomaali koobanna waxay noqonaysaa waa dalcad okay qaabkaasi marka waa rising wage nooca labaad intaan u gudbin nooca labaad rising wage ka marka waxa uu ku suubsamaa marka xaaladahan labada nooc ah nooc reversal ah iyo nooc continuation ah sidii hore ugu soo sheekeynay labada nooc ee marka uu ku suubsamo haddii aan muuqaalkan hoos soo dhigo labada nooc ee uu ku suubsama nooca koowaad oo ah uptrend is losing momentum uptrendkii soo socday waxa uu dhumin rabaa ama uu markaasi awood lagala wareegi rabaa oo jihadii wax u socdeen ayaa laga bedeli rabaa nooca marka bearish reversalka loo yaqaano waxa uu ka yimaadaa hoos oo ah suuq uptrend ahay kadib areadan markii uu ku yimaado fariintii hore aan soo sheegnay ee ahayd in uu suuqa kuu soo jabsado ayaad sugaysaa jabsashada noocan marka aad heshid kandalka labaad ee ku siinayo hubitaanka ayaad raacaysaa okay noocaas waa nooca marka bearish reversalka loo yaqaano isla sidoo kaleeto marka waxaa jira nooc kaleeto oo loo yaqaano bearish continuation noocan continuationka wuu ka duwan yahay nooca reversalka kan reversalka waa nooc ka yimid hoos ee kor u soo socday nooca labaad waxa uu ka yimaadaa kor oo muxuu ahaa ii sheeg hoos ayaa laga soo celiyaa oo noo ah support lineka sida kan looga soo celiyey areada resistance lineka ha ku wareerin way fududahay xaqiiqdii ma dhib badna qofka hadduu si fiican u fiirsado iskuna daya in uu fahmo wax badan ayaad ka fahmi kartaa just waxa keliya lagaa raba ayaa ah in aad samaysid isku day adoo markaasi raadinaya suuqa kandal istiikyada ama shumacyada ka dhex raadinaya saacadda iyo wixii ka badan ayaad ka dhex heli kartaa inkastoo mararka qaarna laga helo 45 daqiiqo laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan ama saacadaha ugu muhiimsan marka time frame la joogo waa saacadda iyo wixii ka badan okay waxaan soo sheegnay marka rising wage nooca u samaysmo iyo labada nooc oo ku yimaado ee ah nooca koowaad bearish reversal iyo nooca labaad oo ah bearish continuation good intaas hadda isla fahanay waxaan u gudbaynaa marka qaybteenii labaad ee aan uga hadlaynay volume wage-ka marka waxa uu caadiyan sidoo kaleeto uu shabahaa cagsi uu ku yahay noocii hore ee aan kasoo sheekeynay ee rising wage-ka okay sida rising wage marka oo sii kordhaya volume wage wuxuu noqon karaa kala noqosho ama fariin sii wadis ah sida calaamad dib u noqosho ah waxay ku samaysan tahay meel hoose oo hoos u dhac ah iyada oo tilmaamaysa in uu uptrend soo socda ama uu iman doono sida calaamadaha sii wadista marka waxaa la sameeyaa inta lagu guda jiray koritaanka taas oo muujinaysa in ficilka kor u kaca uu dib u bilaaban doono si ka duwan uptrend kor u kacaya qulqulka dhicitaanku waa qaab bullish pattern ah okay labadaas kelimad waxaan rajeynayaa inaad ila fahantaan noocii hore ee rising wage waxaan u soo sheegnay in uu ku wado fariin ah bearish pattern oo ah hoos in suuqaasi loo celin doono ama suuq sell ah noocan labaad ee bullishkana waxa uu ku wadaa fariin suuq kor u kacaya ama kor aadaya laakiin labada xaaladood marka way kala duwan yihiin
nooca kuu sheegaya selka waxa uu ku soo socday markiisa hore waxa uu ku soo socday by nooca byga kuu sheegaya markiisa hore waxa uu ku soo socday cell laakiin nooca labaad labada jiha uu u suubsamaa noocii hore aan soo sheegayn ee rising wage-kana sidoo kaleeto labada jihaba wuu u samaysmaa laakiin mar walba ay xaaladan timaado fariimahooda ugu muhiimsan ee la raba in aad fahantid ayaa ah value wage-ka haddii aad aragtid waxa uu ku wadaa fariin bullish ah oo ah gadasho ama buy haddii aad aragtid rising wage-kana waxa uu ku wadaa fariin ah bearish ama iska gadis ama sell soomaaligaasi waa fudud yahay u malaynaa inaad fahanteen okay sawirada marka horteenna ka muuqda waa isla sida cagsiga kii hore aan ka soo sheekeynay kii hore waxa uu ku yimid uptrend kanna waxa uu ku imanayaa downtrend oo suuq kor laga keenay ayaa kuu soo galaya areadan marka okay kii hore maadaama aan usoo bixin dalcad kanna af soomaali ahaan macnaha waxaan dhihi karnaa waa degaandeg ama jiha hoose oo hoos loo socdo oo ah degaandeg af soomaali ahaan wax kaloo hadda af soomaali kale waa u waaye okay suuqa markiisa hore waxa uu ka yimid qaybta kore hoos ayuuna usoo socday sida caadiga suuqa marka la joogan waxaa loo yaqaanaa suuq downtrend ah okay suuq downtrend markuu jihadan ku yimaado ee labadan xariijimood dhexdooda uu ku soo galo nooca koowaad inta waxay noqonaysaa lower highs dad si fiican u fiirisid qaybtaana waa lower lows okay area noocana markuu ku soo dhaxgalo marka fariinta la wado ama isbedelka markaas dhici doono ma ogid oo kaliya waxa aragtaa in aad heshay nooc ka mid ah patterniska markaasna suuqa uu ku samaystay fariinta si aad u ogaatid waa in aad sugtaa in suuqa uu suubiyo breakout markuu suubiyo waxaan dhahanay kandalka koowaad ee breakoutka ha ka gelin oo ha raacin sug inta aad ka helayso kandal labaad oo ah xaqiijin okay isla kandalka labaad ee xaqiijinta markaa heshid sidoo kale maxaa kaloo la rabaa inaad xisaabtaada kusii dirsatid waa inaad ka shidaal qaadataa dhaqaaqii hore suuqan uu sameeyey inta lagu jiro labada xariijin dhexdooda weliba aagaga waaweyn fiiri xariijinta hortaada ka muuqata waa laba qayb afkaanna way ka yar tahay qaybtan sarena way ka weyn tahay qaybta weyn ee sare sawirka ama soo qaado nooca lagu cabiro bibiska suuqa oo cabiro kor ilaa hoos qiimo ahaan inta bib ay ku siiso ama 50 ama 70 waxa la wixii la doono ha noqdaan waa in aad uga shidaal qaadataa suuqan markii uu ku soo jabsado bibiskii uu hore u soo dhaqaaqay inta in uu mar labaadna dhaqaaqi doono ugu yaraan waaba hadday ka bataanna kaba sii fiicanba laakiin ugu yaraan waa inuu intii hore inta lagu jiro areadaas uu dhaqaaqay waa in uu ku dhaqaaqaa af soomaaligaasna ma dhibadna rajayn hadduu ilaah yidhaahdo okay isla value wage-ka sidoo kaleeto waa la mid kii hore aan ka soo sheekeynay labada marxaladood ayuu ku yimaadaa oo ah marxaladda koowaad bullish reversal oo ah suuq ka yimid jiha kore kuna yimid area support ah kadibna ku siiyey labadaadi xariijimood ee degaandega kadibna kuu soo jabsaday suuqii weliba hadda markuu saanoo kale usoo jabsado weli sugitaankii kuuma dhammaanin oo waxbaa kuu dhiman oo kan dharka labaadee xaqiijinta ayaa weli sugaysaa okay nooca labaad asagana waa bullish continuation labadii hore bearish reversal iyo bearish continuation ayay kala ahaayeen noocanna waa bullish reversal iyo bullish continuation kelimadahan way ku soo noqnoqdaan badanaa suuqa sarifka bullish reversal continuation bips lot size ranging uptrend downtrend waa inaa marka fahantaa ama aad ka haysataa macluumaad markaasi kugu filan okay bullish continuation-kana qaab noocan ayuu ku yimaadaa oo ah suuq ka yimid jiha hoose ee ku yimid area resistance ah ama meesha iska caabinta suuqa xariijinta sare kadibna xariijintaadii hoose ee supportiga ahayd marka aad labadan xariijin sidan u dhigatid waxa ay ku noqonaysaa waa area degaandeg ama jiha hoose oo qaab hoose loo soconayo good intaas haddii aad fahantid marka rising wage-ka sida uu u samaysmo iyo meelaha uu ka samaysmo iyo noocyada u samaysmo iyo haddii aad fahantay falling wage-ka saas waxaad ku haysataa 3 nooc oo si kala qaybsamaan oo ah double top iyo double top button iyo sidoo kaleeto head and shoulder bottom iyo muxuu ahaa ii sheeg noocan caawa falling wage
iyo rising wage haddiiba intaasaa isku heshay marka inta dhimanay soo socota si aad u fahantid waxaa u baahan tahay intii hore aad soo baratay in aad ku ceshatid si aad uga raadisid suuqa dhexdiisa hadduu ilaahay yiraahdo okay tusaale yaroo marka hadda aan suubiyey ayaan idinla wadaagaa marka hore aan soo share gareeyo shaashadeeda si aad u aragtaan okay good shaashadeeda markaysaan tahay iga qari labadan calaamadood si aad igula fahantaan good maraba lacagtan waxaan tegaynaa USD iyo lacagta dollarka iyo lacagta yenka good fiiri tusaale yar inta ku suubiye ana diyaariyo tusaalahan si aan idinkula wadaago okay tusaalahan noocan ah waa rising wage suuq ka yimid kor kadibna eridii ku yimid xariijimihiina aan ku diyaariyay haddii aan ka leexiyo kan marka suuqan markii uu ii soo jabsado oo eridan jabsashada oo isiiyo waxa mar walba sugaa waxay tahay buulbaaga ama kandhalada xaqiijinta ah markii aan qaabkaasi helo marka waxaa liiga baahan yahay in aan soo cabirto diikan aan iska qaado inaan soo cabirto dhaqaaqii hore ee inta xariijinta uu ku dhex jiro suuqaasi uu dhaqaaqay si aan uga shidaal qaato dhaqaaqan aan rabo in aan aniga hoos u raaco okay intaan ayaad soo cabirinaysaa tusaale intaas markaad soo cabirato 900 105 ilaa 104 okay 103 noogu qabo kadibna qaybtan hoose ee ka hooseysa xayirida support line la imo oo ku qiimeyso waxaan soo sheegnay sida caadiga ah mar walba in ugu yaraan qiimihii inta uu ka soo dhaqaaqay in uu dhaqaaqo waa ayna ka badan kartaa laakiin hadday ka badato waa sidaa rabnay oo mararka qaar waxaan suubsan karnaa laba trade inaan ka galno midna aan take profit u samayno midka labaadna aan furi karno si haddii ay faa'iidada meeshii aan ugu talagalnay ay dhaafto trade-ka labaad si aan u daba socono marka maxaa lagaaga baahan yahay mar walba suuqan forex-ka waa ka sheekeynaa waxa uu kaa raba isku day iyo in aad mar walba raadisid xaqiiqda dhabta ah si aad u heshid una noqotid ganacsada ku guuleysta suuqan sarifka lacagaha qalaad ogow marka dhib walba guul laguma gaaro laakiin guul walba waxa lagu gaaraa dhib wax hal habeen lagu suubiyey ma jirto oo ah maama waxaa jirta dhehayso Roma hal maalin laguma dhisin taasoo ah macnaheeda wax walba oo gadaal ka qurxoonaan doona markooda hore ayay dhib ku bilowdaan iyo sabar iyo dadaal iyo joogteen si hadhow ay ku noqoto hooy aad u seexatid aad ugu nasatid waxaa u baahan tahay in marka hore aad soo diyaarsatid insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo intaasna inaad fahanteen rajeynaa waxa alla wixii su'aal ahna nala wadaaga oo qaybta hoose ee qoraalka ah nagula wadaaga hadduu ilaahay yidhaahdo insha allah ardayda live-ka u qaadanaysana ayagana gooni ayaan ugu soo bilnay su'aalahooda aad aad u mahadsantihiin inta aan ku kulmi doonno cashirkiisa xiga waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh